أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. 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 isugu jira haweenka dhammaan waxaan ku salaamay salaanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib mawduuca aniga hadda aan wax yar inaan ka taataabto la rabo waxa weeye ama aan doonayo daqiiqadaha yar waxa weeye waa khalfiyada ama backgroundka macnaha taariikhda shiicada fi Soomaal masalanba يعني إلى كسب الله وقت يفك أي سوق غيرنا هالكان إلى هذا مراحشة إيو وحيابها أما إيديك سدان هنا حسنا وحير كتابنا إن شاء الله تعالى. سيدا هذا أول أركين فيديو بس وحوي يعني قفل الشيعين أيو والله قبنا أيو توحيدك وحيابها كنا واقعية وتوحيدك يكملتها هاي إن سيدا لوجو حد جذبه صحابة رضوان الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه. مركز موضوع وصل نقطة خلفية تاريخية على إلى أفكار الشيعة ذاهو دائما ما لها بدنا يكسر يعني مدن ساحلية ذل كين الصومال هدي اللي إلهه ما لها حيابها هالكاس أي سوق يرتدل كين مركبه الرئيسي. وحين هذا الحل جاز مركي الأسرة الشيرازية الفارسية أو فارسية هذا حل جاي جرتي ومالها سكسوا عررين مجال المقدس وسوا جارين وحي هذا قرن نجيد تضباط هجرية. وحال كان يبنفتي سمؤسس كي أو علي بن حسن الشيرازي أسرة شيرازية يا شرق إفريقيا مالك لدون أيقون التجال. لكن وحلي هذا التشيع سيادة ولا تابكره وحياب آثار والجا بين هو تجان لكن وحلا تابكره كم وصفافي حلي ذي الدمبو ويعني أنا جهدا دانو سوق من الدولة نمدين يجستي هالكا حتى ورقبتان ذلك وحاجو بجري جاليات وهندية الجالية الهندية أي حول كل هذا يعني إلى آخر إني جاريس إلى كن إلى لباب بقول قفات لا تلمامه جاليات كسبده هذا أيه وحكوسو روماناي ولا سو حجليناي ضد منطقة أفكار تاسحين بارسن وهالكا مرة كقارس كضيع إني وحكفا فيها مت كمية جاليات كاس هندية ومدة بدن هالكان جوجي وهالكا كل شيء ومنطقة سوماليو بيو هذا لو قرنايو وكي أساسي جمعية اللغة مقعاو جمعية المنتظر للخدمات الاجتماعية ورعاية الأطفال أيو سدي تيمياتك اللي قاسوا أساسي حكومة دار لقد ديوان قليل جمعية عادي هو أديك بالش سمينيسا مراكز أي سميستي وميلا بدنا وحيابها متقانا أي قبنايين لنا عافماتك إن مدارس يدكسية هلكا وحلقة قبطو إن دادك بيو وحيابها متقانا عيالا لو قضوا لسيو دمر كسيجار عن يحوق أسارين الخياطة يمالته اللي ماله يحقوا برتان الحرف اليدوية وحيابها اللي ينادوا أما نقطة متقانا الإندقي وحيابها متقانا نوع عاص إن لو سمايو أي يحوق أسارين مؤسس كاس أو يعني يقوم مقعاب جري هاشم ونولي إلى هذا حتى مرة وي ماذا ذلك وي ماذا أو نبحان هاشم حسن بالليل هذا و
sagaashan kowdii markii ay dhibaatadu dhacday markaskii wuu burburay ayagana way carareen oo kuwa ugu sukaaday Kenya badankood galeen halkaas bay galeen laakiin asagu wuu soo noqonay wuu imaanay wuu soo noqonay wuu baxay waa yartad ilaa hadda sidaas buu yani u yimaadaa madaakhisha marka meelaha mataqaanay ay ka soo galaan ama yani ay dadka inay isku shiiciyaan yani waxa ugu weyn waa hay'adda hadda laga hadlayo sheekha uu ka hadlayay oo Khomeini waqtiyadan dambe ayada ayaa mataqaanaa yani dhaqaalaha miisaaniyadda waxay ka miisaaniyad badan tahay wasaaradaha waaweyn dawladda Iran saas baa la yiraahdaa macnaha waxaa loo ogolaadaa qarash aad iyo aad u fara badan marka anaga dalkeena kaliya ma meelo fara badan oo ilaa yani 40 inta dal oo muslima waxay ku leeyihiin maraakiz waxyaaba markay adeegsadaan oo anshidada oo yani marka hore dadka ku soo galaan zawaaj jamaaci aan sameynaan inay yiraahdaan dad baan isu guurinaynaa masaajid yani qaar meelahaas inay dayactir iyo wax ku sameeyaan amba wax la dhiso xataa in tadriib oo bulshada loo sameeyo waxyaabaha sarqaamanka ama waxyaabo kale sidaas oo kale iyo waxyaaba mucaawanaad oo ghidaa'iya in wax sidaas oo kale wax la bixiyo ay adeegsataa ashqaas ayaa jira oo fikirkaas yani mataqaana ximbaarsan oo mataqaana la ayaga gacan siiya waxaa jira sida hadda sheekhu uu ka hadlay bictaad oo loo diro yani Iran oo kale halkaas ay u diraan ayagoo yani qolooyinkaas adeegsanaya waxa la yiraahdo tabaadul thaqaafi waxaa jira mowqic oo Facebook amba waxyaabaha mataqaana aaladan oo casriga ah oo yani bismi shiica ahlul bayt fi Soomaal ayaa looga hadlaa ahlul bayt fi Soomaal waxaa kamid ah qodobka labaad ah oo yani madaakhisha wax la yiraahdo al-minah ad-dirasiya oo minha diraaso waxbarasho in la siiyo dad sida oo dad muslimiin oo Soomaalidu ay kamid tahay halka ay tagaan kadibna halka ay ayagoo meelaha jaamacaadkii la siiyay iyo halka waliba dalkooda kale ma aha meelaha mataqaana sida hadda Yemen oo kale meelaha loo jiro Iraq meelaha ay mataqaana ayagoo ay aad iyo aad ugu xoogan way kamid bay tahay ilaa dadkaas markaas ayagoo thaqaafada ximbaas halka ay soo laabtaan madaakhisha waxaa kamid ah al-madkhal ad-diblomaasi oo ilaa hadda la xaqiijiyay inay jiraan shakhsiyaad diblomaasiya oo siyaasiyiin oo Soomaali ah oo xiriir adag la leh iyaga badnaanin oo aqaliya iska noqdaano waxaa kamid ah meelaha madaakhisha aad iyo aad u xoog badan oo kamid ah ninka hadda aan arkaynay al-muqtaribin dadka yani dadka oo dibadda jira ama magaca doonto u bixi macnaha dadka dalka dibadiisa ku nool waxay kamid tahay Yurub xataa dadka aad iyo aad looga faa'iideysto oo yani la shiiceeyo oo ayaguna shaqo sii qabtaan shaqo badan sii qabtaan aad buu marka ugu faafaya dadka muqtaribiinta gudahooda waxaa la sheegaa in yani ilaa 28 qof يعني oo nin baa hadlaya oo hadda aad arkaysaan ku jira internetka halkaas oo kale oo la yiraahdo Maxamed Cali la yiraahdo wuxuu tilmaamayaa qoyskiisa inta ehelkiisa inta uu suura gashay inuu shiicay ayuu halka ku cadeynaya waxaan rabaa inaan soo koobo waqtigoona ay awgiis waxaa kamid ah madaakhisha wax la yiraahdo al-madkhal al-insani mu'assasatu al-Khomeini ayaa barnaamijkaas iyadana wada oo anshida oo kala bedelan oo waliba waqtiyadan dambe waxaa tansiiq kula sameynaa Hilaal Ahram al-Irani ayaa sameynaa ama ahaado mid caafimaad ama ahaado mid sida adeeg bulsho madaakhisha waxaa kamid ah midka ijtimaaciga oo zawaajki jamaaciga hadda anaga dalkeena magaalada Muqdisho waa yani ilaa Hargeysa hadda waxay la qabtay qaarkood waxyaabo sameeyna waad ka warqabtaan laakiin ilaa qarno qayb baa jirta laakiin halka Muqdisho markaan ka soo qaadno hay-adaasu mashruuca ay fulisay حتى الآن inta hadda la ogyahay ilaa 100 dhalinyaro way ilaa 100 dhalinyaro ay yiraahdeen waxbaan mataqaana isu guurinayna waxa qarashka ku baxna xataa wax badan ma waa qiimee ilaa $500 oo waliba alaab lagu soo gadgadayo 300 amal waxa lagu soo gadayaa takabaanka yarka laba joodari iyo maacuuna marwaxad waxyaabo saas ah loo soo gadayaa 200 waxa la waa 7 bixin oo raashinkii halka inahaas dadka marka waxay noqonayaan dad diiwaan gashan
oo xiriir la leeyahay oo ilaa hadda yani macluumaadka la haayo ay kamid tahay liis jira oo suulka weliba dad laga saxiixayo oo inaan ka baxay oo halkaas oo anigu islaamka asliga ah aan galay oo suulka qoraalkaas suulka uu saarayo xataa ay jiraan saas baa la sheegayaa madaafisha waxaa kamid ah madkhalu tahhiil wa tadriib oo yani maraakiis fara badan noocaasay furtay lajnadaanu ama lajnat ulama alqumeyni aan ula jeedaa oo macnaha khiyaada u badan yani magaalada muqdisho ilaa 15 markaz ayaa jira oo inta badana dumarka yani lagu tababaro waxay weliba leeyihiin waa inay amba garoob tahay amba gabar ay tahay oo sidaa naag oo hadda la qabo mar rabnay leeyihin tababarka marka dad sidaas si hadhow gudahoodana uga keenaan zawaajka jamaaciga ay halkaasna gudahooda uga keenaan waxaa kamid a qolooyinkaas marka wax badan oo kharash xataa kuma baxo waxaa weeye hal nin oo maamula meesha loo samaynayaa iyo qof mucallim alkhiyaada oo baraya dadka waxaa la siinayaa intka maamulahana 100 buu qaadanaya kana 100 bis $200 iyo wax lamid ah way hadda qarashka xataa oo sida yani dadka lagu duleysanayo waxaa kamid ah madaakhisha tarmiim almasaajid wa ricaayat shuquuqaha masaajid gaara in xoogaa dayactir lagu sameeyo dadka joogana mataqaana shuyuukhdaas halkaa la yidhaahdo waa waxbaan wax yar oo raashina marmar loo keeno macnaha sidaa lagu sabsabo ayaduna kamid bay tahay magaalada muqdisho ayay ka jiraan masaajidaas afgooy oo shabeellada hoose iyo halkaa ayay ka jiraan yani waa ilaa meelo kale madaakhil dibbiyaa jiray oo meel goobo caafimaad oo hadda kan oo markaska ay lahayd qoladan mataqaana hilaal axmar ba ugu sii weynaa oo weliba ay caddaynayaan dadka halkaa adeega ka qaadan jiray oo halkaa tegi jiray muddo fara badan in ay jiraan manshuuraat maktuuba biluqa soomaaliya oo loo qeybinayo dadka oo afkaartii meelaha qaar sidaa yani wax lagu gudbinayo madaakhisha waxaa kamid a sida hadda ay daraasadu tilmaamayso alqalaawi alqur'aaniya oo iyadana sidaas oo kale calaaqaad laga yeeshay oo ilaa 78 la diiwaan gelshay macallimiin u diiwaan gashan ayaa jiro lajnadaas iyo mataqaana hilaal axmar labadu ay diiwaan geliyeen dadka soomaalida marka maqaar xiriir toos oo dhab ay ka tahay noqoto maqaar waxay u badan yihiin dadku isdhahayo xoogaa wax ka qaado adugu meesha intaa ayagu waa lagu diiwaan gashana mar haddii lagu soo noqdana saameyn in lagu yeesho ayay u badan tahay madaakhish waxaa kamid ah al-ittisaal maca alqabaa'il asoomaaliya gaar ahaan odayaal dhaqameedyo oo xiriir lala sameeyaa jira oo hay-adda mataqaana amba lajnada khumeyni xiriir la lahaa oo ku noqnoqonaya oo shaksiyaad weliba mataqaana mu'athira ah madaakhisha waxaa kamid ah almadkhal tijaari oo ganacsigii yani tujaarta iiraaniyiinta inay sameeyaan calaaqaad dad soomaaliyiin oo mataqaana ganacsataa oo weliba dibadda jooga meelaha si sharikaad iyo loo abuuro tijaariya hadaf fog oo dalkan sida sharikaad waaweyn oo markaa dad badan shaqaalaysa dadkaasna saameyn lagu yeesho adeeg badan qabata yani oo mabaadi'dii tashayucan halkaa lagu fuliyo ayaduna waxay kamid tahay madaakhisha ay ku talagaleen oo qorshaha ku jirta intaa haddaan madaakhisha ugu gudubno waxaa jirta asbaab maxay tahay maxaa u keenaya qofkaanu inuu xiriirkaas la sameeyo dadkaan oo tashayucaan iyo dadkaas wada in xiriir lala sameeyo lala hadlo lasoo dhaweeyo oo ku diiwaan gashado maxaa keenaya asbaabta waxaa ugu weyn alfaqr waljahl labadaasaa ugu weyn waxaa waye dalkan waa dad maadaama dad iska baahan uu yahay qofkaan waxbaan ku siinaya uu leeyahay iyo jahli jira ayaduna labadaas ayaa majaalka siiyey inay nashaadkaas sameeyaan ugu weyn waxaa kamid asbaabta jamhuuriyatu iiraan oo barnaamijkan ugu tala gashay miisaaniya dakma aad iyo aad u weyn oo miisaaniyad fara badan ayay ugu tala gashay dhinaca kalena dawladihii carabta oo ayagu dhaqaalaha lahay oo dalkan markay azimadu ku dhacday yani taraajuc ka sameeyey oo hadda yani ayagu aan waxba saa ka marka waxa weye meel banaan iyo dadkii oo baahan ayay heshay iyo ayagoo ka faa'idaysteen asbaabtay kamid tahay duruufta soomaalida ama dawladda soomaaliyeed oo hadda controolkii la rabay ma wada controli karin dawlad adag oo hay-aadkeeda wada dhisayn hadday joogto waxa weye wax badan baa la ogaanaya laakin dawladda maadaama awood lahayn waxaa yimiday safiirkii hadda iiraan oo safaaraddii
يعني سفارة دي مرات قار حتى سفير كلا تلمامي إن وتبدأ قاقو مشروع مثلا مقالة الجيس كذا كاران وكلا كسعودة إنه أسوي تجو وهالكا وتجو أما يعني خميني حسكي سلسمينا حول اللي جي وكقيب قالوا ماشي وتجو أما أهرمك لو وتجو ويعني ضل إسكفرنا وهذا وحوين يعني الكنترول كريم ونجوبنا أسباب توحاكم إذا إذنا وحيكف أي سنة مؤسسات كاس إيرانية أما هذا هو خير أما هو كله حب الصوماليين لآل البيت ذاتك الصوماليين وأهل البيت كجعل أهل البيت كمان هدي اللي يرادوا أهل البيت كأنه وانا معنا قاركود لعنادنا سوقلية مركا أنه سجودا وجعلنا هاي احترام بدل ما نهينا علي بن أبي طالب الجريدي سدين الله شيء وحوي وحياها البوك تسوي كري كمتها وحياها سوق دوينا وحاكمنا dhibaatooyin kan kale kooxaha cunfiga wada oo yani ay tafjiiraadka iyo cunfi dhibaatadaas wada maadaama dad muslimiin isku sheega ay dadkii dhibaayaan qarxinayaan dhibaateynayaan mid kale hadda aan ku qarxinayno waxaan ku siinahay waxa keenaya mandaqa in qofkaas xoogaa u dabco ayadana way keenaysaa waxaan rabaa marka inaan waqtiga kooban darteed inahaas aan ku soo koobo marka barnaamijkaas يعني وسيدا عم صور شيء طبعا إلى بقول عائلة زواج كجماعة هذا هي أدوية سمينيسي خياطة أرقامك الغيش إلى كل أنت أسمع مراكز إلى كوي طبعا وخياطة قوة مراكز كلو أجرستا أو دومرك وحيابك اللي لو سميني هذيك يعني اسكو صدوبه وحلو قياس حتى العكتا إلى 6 مليون لح بقول كنتم كون قرشات ككوب حي لبضع سنة لو كن كوي طبعا كيمادين هذا صدقتي أنا بمركز صدقت جوري كوي أنت حفيز كذا مالك الفرع وكغيب قلي أنا هو حلوان برلمان كأحيان كغيب قلي أنا حلوان كله ونقن كودي وحياب هودي وحرير البري لي جديان كرمرني أيضا هذا حرق جركي هل كان مركان قلني كدي بحال لكل ما نرجع برنامج كوده ميت كمان سيجار أولا كل ما وحبان أقول شيء كي مركان كشيء كي نحو تسبوب وين ويكون قريهين سورة علماء الصوماليات هي مساجد مالها غار ماشان متقنا ويري هل كان متقنا ومقالة مشغار فيال يغار كلام مالك الفيال إلى زي العجران وحياة إحنا ضد وحورادين أي نين وحرات سنة أو يعني بوغاز وحولي وكتاب كان أنا تاريخ ديني صومالي ذوي مركز ضد وحور سنين أو بقولال سنة وحور سنين هذا مساجد كويا لا مقالة ذا يعني وحمروني فيها وحلقة شيرازين تلبسي تاريخ ذو يكون على سيد تضرب قبل كم تصيروا لسين تاريخ دل لسا كتال حلقة سيد لسين هذا مركز يمدين هو يتجن ترميم يكون سمين حاجة يرو ضيعتري أحوال يكون سمين وأبجهن مركز وحوض النبوة حسابيه مركز وحان ربع يعني وجددوا حيها يعني وحتى تاريخ ذا معنا الصومالي سامين تا أيضا كمان أنت ويكبرت هاي دراسات هذا القسمي لكن واقفين موضوع عسكري يعني في أي جدد هذا بعد متقنا سنتين حقا واللي بوناي علماء دي ورنا فديدا مركا وأمشي وأنت الضياء لدرب أصلي عليك أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق إليك أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك وكل حنين وشوق إليك عليك وكل